بسم الله الرحمن الرحيم دمان waxaan salaamayaa bahda ku mudooday dalada Exkalka ay rajo dhamaantood meeshan ka soo qayb galay waxaan ku bilaabanaa ayadaha Quraanka Kariimka waxaan noo aqrinayaa Ahmed Maxamed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاك الله خير. waxaan ku xiji doonaa gudoomiyaha dalada Exkalka ay rajo Baashi Xasan Ereg mudane Baashi Eere soo dhawow. bismillaahir rahmaanir rahiim. horta waa in salaamay dhamaantiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi horta waxaan aad u salaamayaa Saacdiye Bedel oo baryahan loo soo naga jirtay oo ah gudoomiyaha degmada Kalkacyo haweenka aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa Saacdiye walaasheen waan aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa dhamaan dalada waxaan kala soo dhaweynayaa madaxda kala duwan ee dalada rag iyo dumar maantiin qof walba xilku ayaan ku salaamayaa inaan baan ku soo dhaweynayaa walaalayaal horta waxa loo baahan yahay jadwalkan xafiiskani maanta hadii ilaahay isu keenay ilaahay mahadis weeye saddex qodob baan ka hadlaynaa caaway hadda miiska noo saaran qodobka koowaad waxa weeye sidii akoonka loo furi lahaa loona idmaday 5 xibnood oo 3 dumar ay tahay labana ay tahay ninka la yiraahdo Liibaan iyo ninka la yiraahdo Maxamed Faarax Garaase iyo Yurub iyo Saadiyo iyo gabar la yiraahdo Sheekh Abshiro Ali Geedi iyo Qasro Abdullahi Cali Wardheere shantaas qof horta waxay noo qaabilsan yihiin akoonka waxaan ka rabnaa ilaahay idinkiis waxaan ka rabnaa inay akoonkaas loo idmaday inay horta amaanadaas noo xafidaan qodobka labaad aan ka hadlaynaa waxa weeye horta walaalayaal qurbo joogti waa shirtay waxayna soo saareen go'aamo oo kadib markay ay ku shireen go'aamay soo saareen 8 wakiil bay sameeyeen oo 8 dal ah waxay kala sameeyeen qurbo joogtu madaxa arrimaha dibadda bay sameeyeen oo loo magacaabay Saciid Jaani oo iyagu u magacaabeen anaguna aan la qaadanay Saciid Xogolof ninka la yiraahdo Saciid Jaani walaalayaal anagana waxaan la rabaa marka inaan abaabulno oo xibnihii hore loo magacaawna inaan sharciga iyo dastuurka loo yaalo qaabilsiino soona koobno dastuurka hadda waxaan ugu qeexan 14 xibnood baan ugu qeexan inaan xibnihii ka dhigno 14 xibnood walaalkeen Burhaan Afirseed oo xogayihii guud ahaa dalada wuxuu noqday xilkaas wuu wareejiyay wuxuu noqday xibin noo qaabilsan wakiil noo qaabilsan dalka Austria marka xilkaasi waa noo banaan yahay walaalkeen Liibaan oo ahaa xogayaha guud oo asna xalinta khilaafaadka oo guddigaas Bashiir baa gudoomiye u ahaa macallin Bashiir gudoomiye ku-xigeen waxa ka macallin Gurey xogayana waxa ka ahaa Dr. Liibaan asna xilkaas waa baneeyay guddiga maaliyadda ku biiray labadaas xil waa noo banaan yihiin Yurub waxay noo qaabilsaneed dhanka madaxa mashaariicda iyadoo maaliyadda gashay taasay nooga hartay iyaduna waxa kale oo soo haray Qadro waxay noo qaabilsaneed wakiilka ku-xigeenka wacyigelinta bay noo qaabilsaneed iyaduna maaliyadda gashay xilkaas waa banaan yahay oo ma sha Allah waxa kale oo soo haray Abshiro Ali Geedi oo ku-xigeenka maaliyadda ahayd marka waxaa loo baahan yahay 5 xibnood maaliyadda ah inay yeeshaan afayeen inay yeeshaan xisaabiye qasnaji gudoomiye ku-xigeen inay yeeshaan ayagu inay shiraan arrimahaasna ka shiraan aniga iyo Shukri oo gudoomiye ku-xigeenka labadeenna waxaan ku lifaaqanahay toddoba waxaan ku nahay guddiga maaliyadda waa maasintii saas marka loo gudbo walaalayaal waxa sharaf noo ah horta in ilaahay idinkiin inaan isku nimid walaalayaal waxa loo baahan yahay marka inaan ilaahay dartiis ku wada shaqeyno ilaahay dartiis kuna walaalowno daladan horta waa istaagtay waxaan kaloo ii sheegaya inaan qaadanay magaca ah
dalladda kaalkacyo rajo oo akoonkan waxaan ku furanaynaa dalladda kaalkacyo rajo waxaan ka tagnay XT ila ogaada caaway XT baan ka tagnay dalladda kaalkacyo rajo ayadoo ingiriisana waa haynaa insha Allah oo wax walba wax loo baahan yahay markii erayga af Soomaali laga dhigo iyadoo ingiriisana waa la hayaa insha Allah taas dhaxalka oo gudbo waxaan boor ka dhiganaynaa dalladda kaalkacyo rajo waxaan qaabilsiinaynaa wax walba oo aan magacaabayno dastuurka noo yaala oo xibna aan u saaranay ayaan qaabilsiinaynaa xibin walba aan magacaabaynana waxaan qaabilsiinaynaa dastuurka haddii dastuurku shaqayn waayo ma wada shaqayn karno marka walaalayaal waa maasantihiin waxaa sharaf noo ah inaan caawa isku nimaanno dhammaanteen rag badan oo aqoon-yahanaa yar yar hadda nala fadhiya waxaan rabnaa inay nagala dalladda inay ka mid noqdaan anagu raggeena hadda waxaan nahay midnaha eejahaan nahay dadka yaryar oo maanta aqoonta ilaahay siiyey oo rag iyo dumar leh inay shaqadaan hantaan annaguna garab aan ku siino annaguna intaan wadi karno aan wadno insha allahu taasna way dhacaysaa walaalayaal waxaa kaloo rabnaa inaan samayno magaca kumeelgaar aan ku shaqaynaa maalmahan kumeelgaar waxaan uga baxaynaa markaan soo dhammaystirno akoonkii iyo xibnihii golaha fulinta oo qoraal ah dastuurkiina soo bandhigno iyo dastuurka lagu dhaqmi lahaana aan soo dhammaystirno kabacdi aan conference waxaan yeelan doonaa walaalaheena jooga qurba joogta ah oo 8 xibnood oo wakiilo ah iyo gudoomiyaha guud dibadda noo qaabilsan madaxa arrimaha dibadda oo ah Siciijaani 9 keenaas xibnood waxaan qaadanaynaa conference iyo golaheena fulinta wixii ka jooga gobolkeena kaalkacyo wixii ka jooga iyo xibnaheena muhiimka ah ee dalada kamid ah waxaan qaadanaynaa conference waxaan isla afgaranaynaa markaas 2 sano ama 3 sano sida daladani si u shaqeyso markaas waxaan qaadanaynaa lamarkii markaas aan qaadan lahayn qaabkii markaas bacdi wixii aan isla qaadano markaas kabacdi waxa imaan karta markaas wixii la isla qaato baya waxa loo yeelayaa xadad kabacdina markaas waxa la sameyn karaa ama doorasho ama qaabkii lagu wada shaqeyn lahaa markaas noo soo baxaysa waa maasantihiin aad iyo aad jadwalka caaway wuxuu ahaa inaan ka wada hadalno sidii xafiiskan loo qalabayn lahaa haddaan xafiiska la qalabayn waxaa la yidhi maamooyinka soomaalida qaar baa qardan laakiin waxaa la yidhi soomaalida waxaa la yidhi mar qofkaa rabtid mataqaanaa inaad u tagtid waa in qofka soo horta qurxoon yahay xafiiska haduusan qurxoonayn waxaan u malanayaa kaalacyo ma qurxin karno marka waa inaan xafiis horta qurxinaa muhiimaddu waxa weeye xafiiskan in laga helo agabkii xafiiseed oo loo baahnaa dhammaan in horta laga helo markaan xafiiska qalabayno annaga kaalkacyahana horta waa inaas abaabulnaa kaalkacyahana intaas abaabulno oo aan arrinteennu aysan noqon $5 aan tuurayno bilaha intaan qaaran guud sameeyno xafiiska inaan ku nooleysano annaga horta markaan xafiiska taagno kabacdi inaan la kaashano walaalaheena dibadda open waxay noo fureen si sharaf leh oo wanaag leh bay noola hadleen insha Allah intaas si fiican bay ku dhamaanaysaa waana maasantiin insha Allah walaalayaal aad iyo aad baan u maasantiin